بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan bilaabeynaa course-gii ahaa normal and abnormal labor. saa ogtihiin waxa way casharada u adag ku jira ugu talagalnay inaan fududeyno casharada inuu ardayga fahmay ku adagta jaamacad dhiganayo. marka normal labor iyo abnormal aan course-gan uga hadli doonaa. marka waxaan ku bilaabeynaa casharka koobaad waxaan uga hadlaynaa normalka oo qayb doona dhowr cashir. maanta waxaan ka hadlaynaa kiisi koobaad oo loo yaqaano number 1 ama lecture 1 normal and labor. markii aan ka hadlayno normal laborka yani wuxuu leeyahay definition sama yani definition kiisu inuu yahay physiological process oo san ahayn pathological sama regular uterine contraction inuu jiro regular oo san ahayn irregular duu yahay ma noqonayo normal labor ama true ma noqonayo waxa laga yaabaa inuu yahay false labor arki doonaan farq u dhaxeeyo normal true iyo false labor marka waa inuu regular noqdo regular maxaa waaye continuous inuu socdo sama contraction kaasoo keenayo inuu sameeyo effacement and dilatation of the cervix inuu cervix of the uterus inuu janjo ku sameeyo effacement and dilatation haddii uusan sameeyin effacement and dilatation not true labor yani kaas halina waa false labor bukaanka markuu la imaanayo uterine contraction ka caawina markaas sameeyay BV waxa arkaysaa effacement and dilatation ma jiro marka waxaan leenahay uterine contraction ama painka ka caawinaysid ma aha true maxay loo true yahay wuxuu sameeyaa lahaa effacement and dilatation sama kaasoo haduu keenaa expulsion of the viable fetus inuu soo baxo cunugii iyo balaasantadii and membrane through the birth canal maxaa through birth canal oo soo maray noqonaysa cesarean section waa inuu soo maraa normal birth canalkii marka waxaan this is the definition of the normal labor sidoo kale definition badan iska jiro sidoo kale waxa dhigi kara inuu yahay one set of regular painful erga marba regular ku jira haddii regular ahaan ma noqonayo true yani regular painful contraction sama contraction isku xigo kaasoo keena progressive sama cervical effacement and dilatation yani xabooyinkaas oo regular waa inuu keenaa cervix inuu ku sameeyo janj dilatation and syndrome hadii waxa laga yaabaa ka cabanayso labor pain marka BV sameeyo waxa laga yaabaa ma jiro sama effacement and dilatation xalina guriga iska aad you are not laboring sama maxay yeelay waa inuu sameeyo effacement and dilatation kaasoo sidoo kale xuseynaa descending progression inuu soo dego sama descend sameeyo yani haduma pain uu jiro contraction uu jiro oo descend sameeyeen oo soo degana xalina diso يعني present part in SMS descend marka waxaan this is waxaan leenahay definition ka of normal labor sidoo kale waxaan leenahay markaan ka hadlayno labor mataqaana wuxuu leeyahay sidoo kale criteria leeyahay soma yani criteria leeyahay maxaa kamid ah normal markaan leenahay waxa yeelay markaan erga isticmaalo normal waxa jiri doon abnormal soma yani waxa markaan dhahno normal waxa jira cagsigiisa ah abnormal abnormal marka waxa leena normal soo noqdo inuu la helo waxaan shuruudan soo buuxiyo inuu noqdo spontaneous onset yani inuu waxba induction loo sameeyo sama inuu isaga imaado laborka spontaneous onset haddii induction noqdo waxa noqonaa abnormal sama waa inuu term noqdo term waxa waa yani preterm ma aha postterm ma aha yani waxa u dhaxeeya 37 ilaa 40 week waxa leena this waa term laakiin uu ka yar 37 waxa leena waa preterm haddii 40 iyo kow ka badan waxa leena waa postterm sama waxa noqonaa abnormal sidoo kale inuu single noqdo sama haddii twins noqdo waxa leena waa abnormal yani inuu noqdo single alive hadii uu yahay IUFD sama haduu dhintay IUFD waxa leena this is abnormal so inuu normal noqdo inuu alive noqdo shuruudo inuu soo bixiyo number 2 presentation kiisu noqdo vertex arki doona presentation noocyada kala duwan sama wuxuu noqonaa bridge presentation face presentation asaga xalay wajiga face presentation brow presentation waxa leena waa abnormal kan normal waxa rabnaa vertex inuu la imaado erga vertex maxaa waa upper part of the skull so skull meesha uu sareexanahay madax tinta inuu la imaado waxa leeyahay waa vertex presentation like haduu wax kale la imaado example inuu face kale imaado inuu brow presentation sama inuu la imaado bridge waxa leeyahay this waxa leeyahay waa abnormal normal waa noqdo vertex presentation sidoo kale waxa noqdo inuu san jirin prolongation yani inuu san jirin waqti dheer oo san qaadan yani noo xilli lagu talagalay inuu qaataa oo labor time kale lagu talagalay normalka ah waa inuu soo maraa birth canal sama laana doo caloosh ka soo baxana waxa noqonaysa cesarean section waa inuu soo maraa this noqdo normal labor sidoo kale waa inuu jiraa without maternal and fetal complication yani waa inuu waxba complication oo san dhicin waxa this waa normal wixii intaas ka baxo waxa leenahay wuxuu noqonaa ereygan wuxuu noqonaa abnormal intaas ka bixin intaas wixii ka baxsan waxa leenahay wuxuu noqonaa abnormal sidoo kale waxaan u gudbaynaa ayadana oo aan ka hadlaynaa mataqaana waxyaabaha ama factorieska xadidayo sama yani waxa jira factorada xadidayo inuu noqdo ama saameynayo laborki yani halena what is the factorieska xadidayo waa saddex factor waxa 3B
waxaana waa 3B bida koowaad muxuu yahay powerkii of uterine contraction waa inuu jira power oo xoog leh oo strong oo ka sababi karo expulsion of the fetus sama power inuu jiro sama contractionkii passage maxaa waaye waa bone pelvis meesha soo maray sama waxaan ka hadlaynaa marka maanta dhan casharkeena waxa waaye marka laga hadlayo normal delivery abnormal waa saddexdaas laga hadlaa passenger maxaa waaye cunugi yani cunugi meesha soo maray waxaan waa passenger ama waxa laga waa cunugi fetuskii presentationkiisa laigiisa positionkiisa and placenta waxa loo yaqaan passenger markaan leenahay factorieska ama waxyaabaha xadidayo laborka waa 3 shay 3B power oo ah contractionkii passage oo ah bone pelviskii and soft tissue sama ku hareersana iyo passenger oo ah cunugii ah marka waxaan labana waa hooyada halna waa fetuskii hooyada maxaa waa powerka iyada waa sama uterine contractionkii passage kana waxaan meesha cunug soo maray passengerna waa cunugii meesha soo socdo marka waxaan this waxaan waa factorieska xadidayo sidoo kale kana ayadoo suurad kale ah oo picture kale ah 3B sama 3B waxaan waa 3B bida waxaan cunuga waxaan waa passenger kana ana cunugii waxa laga hadlaa sharxi doona maadaama discussion ka noqona in laga hadlo fetuska soma yani presenting partikiisa qayb ko madaxa la soo galay diameterka madaxiisa waxaan haddan ka hadli doona yani waa inuu noqdaa fit ku noqdaa meesha oo soo ka soo marayo ah passenger kana passenger waa ka soo marka waxaan rabnaa aan ka hadlana waxa hooyada pelviskeedi oo normalka ahaa iyo normalkii of the fetuski iyo powerki ah uterine contraction waa 3B passenger passage and power sidoo kale waxaan ka hadlaynaa oo ku xigo inaan ka hadalno aan bilowno cunugii aan bilaabna fetuskii yani waxaa jira 3 factor maanta factorka xooga saaran waxa factorka koowaad ah passengerka maxaa waa leenahay waa fetuskii asaa maanta ka hadlaynaa casharkan oo number 1 oo ah hadafka dhan wuxuu maanta inaan fahanno passenger casharka soo socda ka hadli doona powerkii iyo passage marka waxaan ka hadlaynaa passenger fetus marka ka hadlayno waxa jira erayo in fahanto u baahan erayada daa fahanto labor waa fahanto erayada maxaa number 2 erayga presentation waxa la dhahaa presentation waxa la dhahaa waa partiga of the fetus kaasoo soo galayo pelviska yani waxa leenahay party presenting party ma madaxii la imaaday soo waxa leenahay cephalic wuxuu la imaanaa soo lugihii waxa leenahay bridge waxa leenahay erayga presentation waxa leenahay waa presenting partiga kaasoo soo galayo pelvic brim sama oo soo imaanaya ama qaybta oo adduunka soo qaabilaada af Soomaaliga dhan qaybta oo ku soo baxayo jirka markuu soo baxay qaybta ku soo baxay madax uu ka imaanaa ma lagu marka waxa erayga presentation waxa leenahay waa partiga oo cunuga sama fetuska oo la xiriiro pelvic brimka ama pelvic brimki oo hooyada sama this marka waxa leenahay waa qaybta ugu horeysa loo taabanaa marka asameynayso vaginal examination erayga marka presentation ina fahanto waa yani waxa leenahay markaan ka hadlayno laborka wuxuu leeyahay erayo hadaa fahanto waa fahantay hadaa fahmin oo ku wareeraysa marka ina erayada fahanto ko inta gudaha u gelin erayga presentation hadaa waa fahantay presentation marka meeqa noqon karaa ko wuxuu noqon karaa number 2 wuxuu noqon karaa cephalic ama erayga cephalic asaga common ah boqolkiiba 96 waxa laga noqdaa cephalic ama erayga cephalic labadaba la dhahaa cephalic no you can pronunciation waa cephalic and sidoo kale waa erayga cephalic labadaba you can say marka waxaan leenahay cephalic presentation waxaan leenahay boqolkiiba waa 96 ugu badan maxaa waa erayga cephalic waxa waa cunug wuxuu la imaanaa madaxa erayga preach maxaa waa asagana waa yar less common waa yar wuxuu la imaado sama preach lagu la imaanaa sama dabadii loo imaanaa madaxa kor u jira waxaan leenahay this waa preach wuxuu la imaan karaa sawir arki doona waxa ka jiro sidoo kale la imaado shoulderkii garabkii la soo baxo this marka waxa leenahay cephalic marka maadaama uu cephalic uu yahay boqolkiiba 96 wuxuu kala bixi doona 3 yani inuu noqdo vertex inuu madaxa qaybtaas kor la imaado qaybta normalka oo saxda waa vertex presentation noqdo waxaan leenahay ma dhahayna cephalic presentation waxaan leenahay vertex presentation yani qaybtii kor wuxuu la imaanaa tinta qaybta kor sama arki doona sawir arki doona qaybtaas kor la imaanaa vertex waa normalki asaa common ah let's common jiro inuu la imaado face وجهي لي ماذا فيش كي وراسين سفالك وراسين سفالك برتدي إحنا قرأ فيس يبراو مركب فيرتكس إحنا قرأ هو فول فلكشن يعني فول صورة أركض أنا هو فول فلكشن يعني إحنا سمينا هيد إحنا سمينا فول فلكشن كان عكسه فيه هو فول إكستنشن وجهي ولا يمانة براو كانوا حالنا أول حاجة لابد بس مركب حالنا أيضا وحأرجع هذا في حال فانتي بريزنتيشن هذا أرجع بريزنتيشن فانتو أكسر عننا waxaan ugu xigo aan ku xijinayna inaan ka hadalno position muxuu yahay soo erayga position muxuu yahay position waxa leenahay waxa lagu asagana relationka oo la leeyahay fetal back yani waxaan fiirina baagiisa qayb calaaqad oo la leeyahay maxay tahay right ama left side of the mother pelvis yani calaaqad oo leeyahay maxay tahay example yani madaxu la yimid madaxa waxaan fiirina waxa la hayo occiput waxa leenahay ma anterior ama posterior
يعني markuu yahay vertex presentation markii uu face yahay waxaan fiirinaynaa garkii soo mentumkii ma anterior ama soo posterior ma kor u jeeda ama soo jeeda erg marka position waxa laga wadaa presenting point ama bone party ama waxaan fiirinaynaa back of the fetus tooxiga ama waxaan leeyahay presenting party-ga bone-ka dominant bone-ka waxaan leeyahay intuu jira ama anterior ama posterior waxaan leeyahay erg uu vertex yahay waxaan fiirinaynaa occiput waxaan leeyahay ma anterior ma soo posterior sabraan arki doona waxba isku murjin sidoo kale waxaan leenahay waxaan arkaynaa ayadana inaan fiirino bridge markuu yahay waxaan leenahay waxa la imaan sacramka waxaan leenahay sacramka ma anterior soo posterior brook shoulder waxaan leenahay scapula waxaan leenahay ma right ama soo left hadana waxaan fahantaa ayadana sidoo kale erga positionki soo sidoo kale waxaan kala fahmaynaa asagoo sawir lagu sharaxay soo markaan sawirada ku sharaxayno waxaan leenahay this is waa kana soo يعني أسمع إنه نقرأ fetal position كي أسمع إنه نقرأ إنه نقضه occiput إنه نقضه posterior سما إنه نقضه occiput anterior سما يعني إنه نقضه occiput إنه نقضه anterior كم بس كم ويكره كم حالنا دي حالنا هو occiput posterior أنا حالنا occiput anterior يعني occiput كي وكنا أسمع إنه نقرأ back يعني وحنا سوحي هورا سوحي حالنا occiput anterior markuu gadaal xiga xalina waa occiput posterior asaga cusiyana farci markii yaa common waxa common inuu noqdo occiput anterior ayaa common ah asaga waxa mostly asaga noqon majority waxa noqon kara sidoo kale occiput posterior markuu noqdo anterior waxa noqon kara right occiput anterior inuu noqdo lefty watana isma lefty hooyo watana lefty occiput anterior inuu noqdo right occiput anterior occiput kana noqdo transfer right occiput transfer inuu inta aado left occiput transfer sama sidoo kale baagi inuu inta soo aadana right occiput and left occiput posterior marka xalina this waxaan leenahay ayadana waa suurad kale kugu cadeynayo positionki sidoo kale ayadana waa tan ayadoo si cadeynayo si sharaxayo occiput waxaan leenahay bone ka kana soo occiput bone ka kana intan waxa waaye waa sacrum soo sacrum waa kana hooyo soo qaybtan waxaan leenahay waa pubic bone soo marka waxaan leenahay occiput ka tan hadda maxay tahay waa anterior marka waxaan leenahay waa occiput anterior hadii tan inta imaanay waxaan leenahay occiput posterior inta hooyada tan left geeda tan sama tan left sorry inta waa right haye marka waxaan leenahay waa right occiput sama left waa left occiput anterior hadii inta imaanay occiput waxaan leenahay right occiput anterior example tan left occiput anterior tan yani waa tan inta aad occiput waa tan gaduud yani waxaan leenahay waa left gi hooyada inta waa right marka waxaan leenahay left occiput anterior inta soo aad waa right soo sama inta waa right hooyada right inta waa left gi right occiput anterior inta matana occiput inuu noqdo direct wuxuu symphysis isku galo waxaan leenahay waa direct occiput anterior yani occiput anterior noqdo isla asagina inuu sii noqdo right iyo noqdo left occiput anterior sidoo kale aydan waxaan ka hadlaynaa live sama yani waxaan soo fahanay presentation muxuu yahay waxaan soo fahanay position muxuu yahay sama yani normal presentation waxaan rabaa inuu noqdo vertex presentation sama normal position waxaan aanay noqdo occiput sama occiput anterior in occiput anterior noqoto waliba right occiput anterior ayaan leenahay normal kama most common erga live waxaan leenahay waa relationship ka dhaxeeyo long axis of the fetus iyo long yani hooyo marka saas tahay yani cunuga waxaan leenahay cunuga maduu isku yihiin long axis waxaan leenahay waa longitudinal sama waa normalki inuu noqdo transfer sama yani hooyada waa kan longitudinal axis of the mother waa kana kiisana waa kana marka saan u jiifaa soo xalina this waa transfer wuxuu kala noqon karaa sama inuu noqdo longitudinal transfer and oblique yani hooyada waa kana kiisi asagina kiisaas noqona saas u jiifaa waxaan this waa oblique this waxaan waa longitudinal this waxaan waa transfer waxaan this waxaan waa lie يعني سدحdaas nooc inuu leeyahay hadda waxaan fahanay position and presentation and lie lie maxaa normal maxaa laga rabaa inuu noqdo longitudinal yani waxaan leenahay longitudinal inuu saas noqdo longitudinal inuu la mid noqdo hooyada oo la safto yani longitudinal axis of the mother waa kana kiisina waa kana isleeyin kan laakiin oblique saas noqon asaga kii hooyada khilaafa mifan this waxaan leenahay waa lie erga attitude muxuu yahay marka attitude marka waxaan leenahay ayadana waa relationship ka dhaxeeyo fetal part each other yani cunuga soo yahay يعني full extension ama soo full flexion يعني inuu sida caadiga waxa normal inuu noqdo flexion asana isku soo aruursan yahay calena flexion waa normal inuu noqdo majority of the cases ka way normal marka attitude ka laga rabo inuu noqdo full flexion asana isku soo aruur maxay la doon noqdo extension ka yani waxaan sida example kale face presentation waxaan noqonaa face
presentation wuxuu noqonaa abnormal marka normal waxaan rabnaa inuu noqdo full flexion ama hadduu noqdo extension waxaa leenahay waa abnormal sida inuu keeno face presentation marka this waxaa leenahay waxaad fahantay erayada ah presentation position lie and attitude maxaa leenahay afraas ayuu ka kooban yahay inaad fahanto erayada ugu muhiimsan oo inaad fahanto laga rabo akaademiyada qaamuus e-learning fogaan wax ka dhigasho kuu fududaynaysa inaad wax walbo aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga qaamuus waa kaalin waxbarasho online ah looguna talagalay kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta baraha iyo barayaashaba sidoo kale u diyaarinta qalinjabiyaasha siday u abuuran lahaayeen shaqo waa kan asagoo sawiraan keenay lie marka waxaan leenahay waa kan hadda kan waxaan leenahay hooyada waa kan longitudinal lie of the mother and longitudinal mother of the fetuskii iyo cunuga isku mid waxaan leenahay waa longitudinal lie presentationkiisa maxaa waa qaybta oo soo horta madaxii sama waxaan leenahay waa vertex presentation sama waxaan leenahay vertex presentation and longitudinal lie kan maxaa waa isku mid labadooda markii la dhaho lie waa longitudinal lie yani long axis of the mother same way iyo long axis of the fetus waa isku mid marka waxaan leenahay waa longitudinal lie laakiin wuxuu ugu duwan yahay waxay ku duwan labadan presentation kan wuxuu noqonayaa preach presentation sama yani waxa loo yimid dabadii preach presentation kan wuxuu ahaa cephalic presentation waliba qaybtii common kaadaan in vertexki sama ma ah face ma sama mid waxaa jiri doona marka lie ka duwan oo loo yaqaano transfer maxaa waay waa kan longitudinal axis of the mother waa kaasa asagana waxaa waaye transfer waxaa leenahay waxaa leenahay presentation wuxuu noqonaa shoulder presentation marka erayada u muhiimsan inaad fahanto laga rabo markii laga hadlayo mataqaana normal and abnormal labor sidoo kale markaan ka hadlayna ayadana waxaa noo sii dhiman erayo muhiim ah asaan sheegnay oo loo yaqaano engagement soo ma yani hadda waxaan soo fahnay positionkii waxaan soo fahnay presentationkii waxaan soo fahnay attitude hadda waxaan fahmaynaa engagement maxaa laga wadaa engagement maxaa waaye yani waxaa erayga ah it is the passage of the widest transfer diameter yani qaybta ugu weyn diameterka ugu weyn oo cunuga soo galayo passageka oo soo marayo fetuska inuu oo galo yani presenting party inuu galo sama yani waxaa leenahay the passage of the widest transfer diameter of the presenting part which noqonayo by Brighton vertex presentation and through the pelvic maxaan ka wadnaa yani in uu engagement sameeyo yani waatan hooyada waxaan ahnay this waa pelviska sama يعني مركو يا بلفس هيب بونك وارك دونا خلي دونا يعنقي إنه ماشي صقر على نتيجة engagement وسمي إنه لابد يبون صقر يعني قيبت واسع سنة of the بلفس كا أو بلفك بريم كا إنه صقر له هيد كسمة أما presenting party وحنا راح يسمى engagement سمة engagement حلوة وضع لبوي هنا abdominal examination أنا كسميه أنا كسميه vaginal examination لبعض بحنا كرنا وحيواي يعني إنه engagement يسميه سمة engagement waxa leenahay mostly yani waxa lagu gartaa waxa loo yaqaan markii laga hadlayo examination waxa waaye second pelvic grip iyo leeyahay waxa lahaay first pelvic yani second pelvic grip waxa ku arki doonaa waxba isku dhiibaan hadda waxba isku shideen waxa ku fahmi doontaa markii laga hadlayo examinationka and history marka uu hadli doono hasa wuxuu leeyahay pelvic grip ayaa leeyahay first and second marka second laga hadlayo aan fiirneen inuu engagement sameeyay in kala gacanta sab saaraysa rule of 5 la jiro waxa ogaanaysa inuu engagement sameeyay in kale sidoo kale marka hoos ka fiirso vaginal examination-ka sidoo kale waxa taabanaysa vertexka waxa ogaanaysa inuu iska isbaanka ka hooseeyo iyo inuu ku hooseyn sama yani iska isbaanka duu ka soo gaaro waxaan waa zero oo arki doonaa sawirada waa hoos noogu imaado sawirka marka waxaan leenahay this is marka waxaan leenahay waa engagement waxa fahantay inuu yahay yani inuu engagement sameeyo presenting party of the fetus inuu soo galo pelviski ama pelvic brimki sama waxaan ku ogaanaa abdominal in examination sameeyno aan fiirino arki doona examination ku fahmi doona iyo inaan vaginal sameeyno aan taa fiiriyo haduu soo gaaro iska spine waxaan leenahay this waxaan leenahay waa engagement sameeyo arkayna sawir ahaan ku arkayna erg station wuxuu yahay yani erg station iyo engagement oo iska dhaween station waxa waaye BV aan ku garanayna yani markaan BV sameeyo waxa ogaana station ku soo marayo yani hoosan ka soo gala gacanta waxaan fiirina station ku soo marayo maxay tahay zero ma ka sareeya ma ka hooseeya marka kor jiro waxaan idana minus marka hoos waxaan idana plus soo dhaweey PV aan ku ogaan station engagement in badan waxaan ku ogaan abdominal waxaan leenahay this is abdominal ayaan ku ogaan engagement sameey inuu meeshii gudaha u galay in kale sama marka erg station ka waxaan leenahay mostly waxa number aan isticmaal doona arki doona ayadoo hadda sawir ayaan arkayna mostly marka waxaan leenahay markii laga hadlayo primary gravitada waxaan leenahay engagement-ga badana wuxuu dhacaa last 3 to 4 يعني هو markay tahay 7 week ilaa 9 week ayuu badan engagement u dhacaa
maxaa yeelay yani uteruskii abdominal muscleski waa adeegin strong waxay keenayaan marka inuu hoos u dago laakiin waxaa arkaysaa marka sometimes hooyo oo multigravid sama multibara maxaa waaye more than 2 hordhash sama multibara and primary error waxaa ku timid in history examination primary gravid maxaa laga wadaa multibara maxaa laga wadaa and grand multibara maxaa laga wadaa waxaad soo fahmi doontaa waxba isku history and examination marka inta multibara ay tahay hooyada waxaa leenahay waxaa arkaysaa ma sameynayo engagement wuxuu dhacaa xilliga laborka u dhacaa soo marka hadii ku imaad hooyo ma taqaana cunug headka oo engagement sameyn oo yahay head floating oo yahay oo waxba engagement oo sameynin multibar ay tahana waxba dhiba ma lahan misman laakiin hadii primary gravid tahay is engagement sameynin ayna term tahay 40 simulas waxay tusinaysaa inuu yahay CBD inuu jirto kifaala pelvic disbarbor inuu soo degi lahayn laakiin multibar waxba dhiba ma lahan wuxuu imaana engagement dhaca xilliga laborka ayuu dhacaa this marka waxaan leenahay this is aydan waxaan leenahay waa stationkii waa station marka waxaan leenahay iska isbaankaas fiirina iska isbaankaas ma soo gaaro madaxa haduu soo gaaro waxaan leenahay waa zero yani erga waxaan leenahay waa zero iska isbaanka waxaan leenahay waa jida iska isbaanka soo dhaxmara waa zero hadii uu ka sar mar waxaan isticmaalaa erga minus wali ma soo gaarin engagement ma sameyn -1 -2 -3 wali ma soo degin waay hadii uu zero ka soo hoos mar waxaan leenahay waa +1 +2 +3 so this marka waxaan leenahay wuxuu sameeyaan engagement +3 already in halad madaxiisa intiisa banaanka taala intiisa arkaysa hadii waxaan leenahay waa +3 +2 xiro waa soo dhaweeyahay and +1 waa labada soo dhaweeyahay marka waxaan leenahay this waxaan leenahay waa normal laborka erey u muhiimsan inaan fahanto ereyga scale spine inaan fahanto station marka laga hadlayo scale spine dul sameeyay waa 0 hadoo ka sareeyo +1 -1 hadoo hoos aan xalina waa plus sidoo kale inaan waxaan erey si guud oo waxaan u qaadanay fikrad guud oo ah yani waxyaabaha loo yaqaan engagement-iga maxaa yani sababi karo inuu engagement dhici waayo waxa sababi karo kale inuu large head madaxa weyn yahay ma geli karo meesha ama sizable cunug weyn waa engagement ma sameeyay inuu yahay mal position sama inuu yahay multiple pregnancy inuu short cord inuu sama sidoo kale contracted pelvis ala CBD yani CBD oo laga wado contracted pelvis waa hooyada masal bonuskeeda waa yarihiin normal fajana ma dhali karto xalina waa contracted pelvis ama CBD kifalo ama cephalo pelvic disproportion waxa jira pelvic to humerus jirtaba balaadarkii aan buuxo rectumki sama sidoo kale power mid fiican ma jira sama oo sababa inuu dhaco engagement sidoo kale waxa jiri kara hay'ad kafalas waxa jiri kara mal presentation mal position waxa sababa waxay keeni kara aydan inuu engagement dhici waayo sidoo kale aydan waxa leenahay waxa arkaynaa waxa madna sharixin hal mar si boobsiisa ku tusina dis waxa leenahay waa vertex presentation vertex presentation waxa waa qaybtaas madax sama tinta qaybtaas waxa leenahay waa vertex presentation waa kan aad hoos ka soo fiirnaa tama marka BV gelinaysid marka kor ka soo fiirisid waatana sacramki sama waatana lafti sacramka waatana cervix bubiskiina waatana waliga marka waatana wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan anterior fontanelle and posterior fontanelle sama fontanelle labada waa marka waa kaas waxa loo yaqaan waa vertex presentation meesha tinti waa qaybta la rabo in cunuga la imaado waxa leenahay waa normalka waxa loo yaqaan vertex presentation waxa leenahay waa complete fraction complete fraction waxa laga kaasa fiili yani qorti iyo madax waxa leenahay waa good flexion action wuxuu ku yahay midkan oo ah full extension midkan waa full extension action waa full extension yani kan waxa leenahay waa full flexion waxa leenahay waa normalki waxa leenahay waa vertex presentation markuu full extension yani waxa leenahay waa face wajiga la imaana soo laakiin face ku la imaana face presentation marka face indiis kana wuxuu la imaana face presentation kiisi afkiisa halina marka BV ka sameeyay arkaysa wajigiisa ka hor imaanay face presentation misaban this marka halina waa yani vertex presentation iyo face presentation brow maxay brow presentation wuxuu la imaana qaybtaas wajiga hore wajigi oo sanki iyo mala imaanay wajigan qaybtan kore waatana yani brow presentation indiis ma arkaysa face ka laakiin waxa arkaysa inuu yahay brow presentation marka halina this halina waa normal position ka and normal presentation ila fahmi karto iyo farqiga u dhaxeeyo markaas marka waxa leenahay waa ila waxaan fahanay hadda inuu yahay yani sabrada maad waan soo sharaxina fahmo marka dib ugu normal position waxa waaye waa occiput anterior waliba right occiput anterior mal normal position kan waxa presentation waxa waaye presentation inuu yahay vertex presentation hey vertex presentation normal position and presentation line wuxuu yahay longitudinal laga rabo normalki inuu noqdo longitudinal line midkiis waxa hadii waa longitudinal line vertex presentation
and يعني vertex presentation longitudinal line and vertex وحالنا و flexion and وحالنا و occipit anterior يعني وحالنا سواء كنا occipit anterior هنا تحت ديس مركو حالنا و normal position and presentation احنا ما شفتوا فهمت waxaan bilaabana marka ayadana qayb kale oo yiriis oo kula xiriirto oo muhiim ah ina fahanto yani fetal maadaama aan ka hadlayno normal labor waa ina fahmi kartaa madaxii cuniga qaabka uu soo galayay marka dhow sheekay ka noqonaysa marka ina fahantaa laga markaan fahmayso koow wuxuu leeyahay bones number 2 علينا tan iyo tan waxa la dhahaa parietal b oo sameeyna parietal bone number 2 dana waa kuwan waxa loo yaqaan f frontal bone yani frontal bone parietal bone tan gadaal waxa la occipit bone نشوفان اسمك علينا هو occipit وسميه occipit bone ما علينا وحكوا كوبين لبا frontal bone لبا parietal bone أن شكله حلو حلو كان fontanelle تنا حلو كان anterior fontanelle تنا حلو كان posterior fontanelle يعني عمره كل شيء كده وحرمة anterior كا يعني posterior كانوا حبايب يسيجوا بس 1 year كده بحرمة صح فمعنا anterior fontanelle and posterior fontanelle شكله حلو كان seizure سما وحب بون ممكن يسوي وحبايب يسكوا جينا seizure سما كانوا حلو كان دير سجيتان سمعوا كنا سجيتان سجير محيي waxa u dhaxeeya waa sijirka u dhaxeeyo parietal bone labada parietal bone kan waa right and left labada parietal bone u dhaxeeya waxa leeyahay this waa سجيتان waxa leeyahay this waxa leeyahay waa سجيتان dheerkan mujida xayaankan this waxa leeyahay waa tan aan qalin marna waa سجيتان sijir yani waxa u dhaxeeya labada parietal bone yani parietal bone ayaa u dhaxeeya sheekhu waxa jira waxa loo yaqaano coronal sijir waxa u dhaxeeya parietal bone ki iyo frontal bone waatana parietal bone waatana frontal bone waxa u dhaxeeya marka waxaan leeyahay coronal seizure sama coronal seizure sagittal seizure mid saddexaad jiro loo yaqaan frontal waxa u dhaxeeya labada frontal bone tan waa frontal bone waxa u dhaxeeya labadan waxa loo yaqaan frontal seizure sagittal seizure coronal seizure mid ku dambeeyo waxa loo yaqaan lambda seizure waxa u dhaxeeya parietal bone iyo occipit waatana sama tan waxa occipit tan waa u dhaxeeya meelo seizure ku jirta saddex sagittal coronal frontal and lamboid afartaas lamboid frontal coronal and sagittal afartaas ay ku kooban yahay seizure fontanelle maxaa la anterior fontanelle posterior fontanelle bones ka parietal bone frontal bone and occipit bone wixii aan soo sharaxay maxaa laga faa'iidaa ereygan hadda aan leenahay meeqa laba boon ka kooban yahay laba boon oo inta ka imaanayso laba parietal sagittal seizure u dhaxeeyo laba frontal waay sama frontal seizure u dhaxeeyo occipit ki waay waxa laga faa'iidaa hadafka waxa marka uu soo baxay adiga markii lagu iridan ka baxay iridan ciriir ku taa waxa sameynaysaa isku soo aruuray marka waxay fududeynaysaa maskaxda isku soo aruuro si oo meeshaas hirisa u maro yani maadaama ay ku kooban tahay lafo isku tagay waxaan u fududeynaysaa wax loo yaqaan inuu sameeyo molding ereyga molding meesha ka imaana molding waxa weeye in lafo isku raam si ay meeshaas ciriir ugu soo baxaan waxa leeyahay ereyga molding waxa laga wadaa inuu yahay ability of the fetal head to change the shape so meesha uu maray ula qabsamo to adapt itself of maternal pelvis during the progress of markii lagu jiro laborka progress laborka ayaa wuxuu sameeynaa lafiya hadda soo sharaxeen ayaa iskorkoray sama waxay sameeyaan markii molding waa kana aad fiiri molding sama lafiya isku soo aruuray si meesha ciriiriga ah u maraan waxaan lahaynay madaxa wuxuu leeyahay Soomaha laba qaybood laba diameter leeyahay anterior posterior la sama iyo transfer yani midka anterior posterior ka waa isbedel marba waxay ku harata qaybta oo la imaanayo presentation ka ama midkan leeyahay anterior transfer ka waa constant transfer maxaa waaye waxa loo yaqaan waa biparietal yani labada parietal bone waa transfer yani wuxuu dhaxeeya labada biparietal diameter waa 9.5 cm wana soo mari kara normal pelvis ka caadiga shaqadu waxa dhacay kan loo yaqaan anterior posterior diameter ayaa wuxuu isbedela according the presenting part ka sama qaybta markaas ku jirto number 2 kale yani waa ta ugu caansan oo la rabo normal ka kana number 2 ugu muhiimsan waa tan waxa la dhahaa this is me the number 2 waxa la dhahaa sub occipito brevant waxay ka imaanaysaa occipit ka sama dhamaadkeeda sub occipito brign waxa anterior fontanelle qaybtaas marka la soo gala madaxa waxa loo yaqaan vertex presentation waxa loo yaqaan vertex presentation waa number 1 waay vertex presentation waana normal kala rabo waay waxa way good flexion waay ama sub occipito frontalis waxay tahay number 2 sub occipito frontalis waxa leena watana number 2 waxa leenahay waa sub occipito frontal yani waxa ka imaanaysa occipit waxay imaanaysaa frontal diameter ku badan waxay noqonaysaa 10 cm sama ku badan 10.5 cm tan maxay ahayd 9
0.5 centimeter soma qaybtan kore marka qaybtaas laga imaanayo presenting partiga marka waxaan leenahay qaybtaas oo ay la imaanayso oo loo yaqaano sub occipito frontaliska badan waxaan leenahay waa occipit anterior way soma laakiin ma noqonayo full flexion ma noqonayo waa incomplete flexion kan waxa good flexion yahay kan waxa leenahay waa incomplete flexion number 3 markii uu yahay number 3 waxaan leenahay waa occipit frontalis waa 11 cm soma yani wuxuu ka imaanaa frontal wuxuu ka imaanaa meesha aan frontal wuxuu imaanaa occipit position soma yani waxa loo yaqaan leenahay occipit frontal wuxuu ka imaanaa occipit number 3 qalinka badan number 3 waa kana soma wuxuu ka imaanaa occipit ki wuxuu imaanaa frontal intaas waxa leenahay inuu la imaado goorma noqonaa markaas qaybtaas occipit frontal markii uu yahay occipit posterior yani waxa leenahay markuu noqdo يعني occipit posterior markuu noqdo waxa leenahay waxa loo yaqaan occipit frontalis yani waxa leenahay waa occipit frontalis waxa leenahay waa 11 cm waa markuu noqonayo occipit posterior markii uu noqonayo number 4 waxa loo yaqaan mento vertical number 4 waa tana number 4 mento vertical waa tana saas waa mento vertical yani wuxuu ka imaanaa garki wuxuu imaanaa vertical mento vertical saas noqonaa idan diameterka ugu asi waa soma waxa waaye waa 13 cm waa 13 ya imaana markii presentation wuxuu noqonaa brow presentation laha waxa waaye 13 cm that's so brow presentation no way for vaginal delivery wuxuu noqonaa only cesarean section maxaa yeelay waa ka weyn yahay inta kale jirka inta kale waa ka weyn yahay yani diameterka waa ka weyn yahay sidoo kale waxa jira inaan sub occipito pragmatic number 5 waa sub occipit submento inta ka imaana garka soma yani injection ku dhaxeeyo mentumka iyo qoorta soma neeg iyo wuxuu dhaxeeyaa iyo marxalada waa sub yani qalinka nabada يعني هو كي معنا نمبر 3 شن وطنا يعني حالنا نمبر شن واي يعني waxa way waa submento pragmatic wana حالنا waa noqonaa face presentation وطنا نمبر شن waxa noqonaa face presentation la imaana waa 9.1 that's why حالنا face presentation waxa loo dhali karaa normal vaginal delivery inta saynu soo gabagabeynayna casharkeena maanta birina waxaan ku xiji doonaa ka hadli doonaa normal labor qaybtii labadan bilaabeen oo aan hadlayno passenger aan waxa hadli doonaa powerki inta saynu soo gabagabeynayna casharka birina insha Allah la soconayna